شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. imaam axmed ibnu xambal raxmatullaahi calayhi ayaa nin xaakim ah weydiiyey sidee dadka dhibkooda looga badbaadaa. ninkii xaakimkaa wuxuu ku yidhi maalkaaga wax ka sii, maalkoodana faraha uga qaad, way ku dhibayaan ee adigu qofna ha dhibin. marka ay wax kaaga baahdaan u qabo, iyagana ha ku dhibin waxa aad uga baahato. sheekh yaxya ibnu mucaad ayaa wuxuu yidhi aadmigu waa maskiin, sida uu fakhriga iyo saboolnimada uga baqayo. haddii uu uga baqan lahaa cadaabta wuu ka badbaadi lahaa. sida uu hantida u jecel yahay, haddii uu u jeclaan lahaa jannada wuu geli lahaa. nin xaakim ah ayaa yidhi arrin kastaa wuxuu ku bilowdaa yaraan, kadibna wuu koraa u weynaadaa ilaa masiibada mooyaane. iyadu waxay ku bilaabantaa weynaan, kadibna way yaraataa. shay kastaana marka uu bato wuu qiimo beelaa oo raqiis buu noqdaa, ilaa edeebta iyo akhlaaqda wanaagsan mooyaane. iyadu way qaaliyowdaa markasta oo ay badato. dhawaaqa carabkaaga wuxuu muujiyaa sidaad u fikirayso. waxba codkaaga kor ha u qaad, balse kor u qaad xikmadda ereygaaga. maskaxda ka madhan xikmadda saaxiibkeed waxay ku kordhisaa carab xumaani ka buuxdo. ha ku dagmin muuqaalka sare, waayo aamusnaanta xabaaluhuba ma aha inay dhammaantood janno ku wada jiraan. haddii aad la fadhiisato jaahiliinta aamo, haddii aad la fadhiisato culimadana aamo, maxaa yeelay jaahilka dulqaad ayaa kaaga kordhaya, culimadana aqoon ayaa kaaga kordhaysa. kalsoonidu waa sida qalcadda, dhisitaankeedu wuu adag yahay, laakiin burburinteedu way fududahay. nin xaakim ah ayaa la weydiiyey maxaa ugu qurux badan wixii aad aragtay, waxaana uu ku jawaabay ma arag wax ka qurux badan qof arkay dhammaan ceebahayga isla markaana weli i jecel. dadka waxaa uga caqli badan qofka adduunyada iskaga taga inta aanay ka tegin, ee xabaashiisa iftiimiya inta aanu gelin.